reerkiisa ayuu u dirsaday yiri gabar ahlul qur'aan ah oo qur'aanka xifdisan oo taqaana u baahanahay reerkii uu wakiil ka dhigtay reerka markuu xal yiri gabadhaan soo buu la gal raa muxuu karaa gabar qur'aan xifdisan deenin walba wuxuu naag ku xushanahay asiga jirtaa kulantii waxaan daawadayaal halkani waa business connect mid kamid ah podcastiyadeena ayaan maanta la soo jeedinaynaa waxaan idin leeyahay maadaama toddobaadkii ciid aynu ku guda jirno ciid wanaagsan si walba ay idin tahayna maalin wanaagsan podcastigeena maanta waxaa marti inoogu ah mid kamid ah gabdhaha dhalinyarada ah ee magaalada Muqdisho ku nool kuwada wax bartay sidoo kalena waxa ay kamid tahay gabdhaha macallimiinta ah ee dadka waxbara ahna weeyane sidoo kalena waa youtuber ganacsata ah Zakiya Aadan Xaaji Ibraahim ayaan barnaamijka ku soo dhaweynayaa Zakiya podcastiga iyo TV-ga Business Connect ku soo dhaw oo maasantahay xafsaay waan ku dhawahay Business Connect waa podcastigii ugu horeeyay oo aan ka qayb qaatay waxa aad ugu faraxsanahay inaan jaanis u helo markii ugu horeysay aan idin soo hor fariisto sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabta ku xiran Business Connect isbuucii ama toddobaadkii ciid maadaama lagu guda jiro waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel walba waa joogtaan si wanaagsan aniguna ciid wanaagsan ayaan si gaar adiga ku leeyahay Zakiya maanta waxaa in ka hadli doonaa diiraddan saari doonaa mowduucan uu khuseeya qoysaska Soomaaliyeed sidee qoysaska la rabo in la dhiso dadka rabo inay dhisaan wiilashii gabdhaha ah yaan pointiyo muhiim ah kaga hadli doonaa inta badan Zakiya idin la hadli doontaa sidoo kalena kuwa dhisan iminka jira ee qaarkood cusub yihiin qaarkood jira ee laakiin pointiyadan in la xasuusiyo loo baahan yahay ayaan dhiirgelintu ay ku saabsanaan doontaa waatii aayadda quraanka ahayd fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun soo dhaw Zakiya waxaan diyaar u ahay inaan kamid noqdo dadka dhiirgelinta dhageysanaya kastoo qodobada qaar aan ficilin ka bixin doono aad u maasantahay mar kale xafsa saaru sheegtay waxa rabaa inaan amarnaa in aan xoogaa la hadalno qoysaska mar dhow dhismay iyo sidoo kale kuwa hadda isu diyaarinaya inay dhismaan insha Allah waliba waxaan xooga saari doonaa dhanka gabdhaha ayagana kama marna wiilash inaan la hadli doono si wanaagsan marka koowaad waxa rabaa gabdhaha talooyinka aan siinaa ama qodobada aan kala hadlaayo in ay aad ugu fiirsadaan qodobada qaar waxa laga yaabaa xasaasi inay yihiin markii aan ka hadlay in ay isla markiiba falcelin degdeg ah ka sameeyaan iyagoo falanqeynta ka dambeeysa aanan u fiirsanin ama aysan dhageysanin waxa ka codsanayaa qodobada in si deganaan loo dhageysto loona socdo insha Allah qodobka ugu horeeyo gabadha markay reer ay yeelanayso ama markay reer yeelato kadib ay ku cusub tahay waxa muhiim ah in ay xusuusato qofkan reerka ay la wadaagaysa ama reerka ay la dhisatay in uu yahay qof bani aadan ah aysan robot ahayn aywa taas waxa ula jeedaa marka xilliga la haasaawayo sida aan wada ognahay qofba wuxuu muujiyaa dhankiisa wanaagsan qofba kan kale wuxuu ka ilaaliyaa khaladaadkiisa in la isku dhaco way yar tahay haddii la isku dhacana si fudud ayaa la isku maslaxeeyaa laakiin arinta markay imaato guur ka kadib markay imaato sheekada sheeko ka duwan ayaa imaanayso qof walba dabiicadiisa dhabta ayuu la soo bixi doonaa gabadha markii inay ogaato ninkan shalay markii la haasaawayay sidii ay ahayd inuusan ahaan doonin oo si kale ay imaanayso oo la isku dhacaayo isbedel uu imaan karo uu khaldami karo khaladkiina mid la xalin karo uu yahay waa midda koowaad haddii ay khalbadeeda ay siisa ay tiraahdo ninka maadaama shal uu ku wanaajin jiray uu kuu fiicnaay ilaa abad sidaas ayuu ku ahaanaa haddii ay iska dhaadhiciso ayna dhacdo beri ka maalin khilaaf ama isku dhac uu imaado in qalbigeeda uu jabaayo ilaa marka hore waxay isku qufushay inaan dhibaato imaanaynin la isku dhaceynin sidii hore shalay iyo kasii yani in la sii ahaan doono marka koowaad waxaan kala talinayaa gabdhaha in qalbadeeda ay ku qabato qofkan inuu yahay qof bani aadan ah khaldami kara khaladkaasna mid la sixi kara ama laga wada hadli kara inuu yahay qodobka labaad waxay tahay aadna loogu fiirsado gabadha in mas'uuliyaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gurigaas ka saaray in ay ka soo baxdo xuduudna inay lahaato markii xaq Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku saaray aad ka soo baxdo waajib Ilaahay ku saaray taas waa wax laga baryaay ma ahan oo qofkan yani laga tuugsanayo ma ahan waa wax xaq Ilaahay ku saaray laakiin adiga inaad xuduud yeelatid inaad taqaanid inaad taqaanid maya kan waan sameyn karaa kan ma sameyn karaa adigoo aanan gudbeynin xadka Ilaahay uu ku dhigay
oo yani amar diidana aadan sameyneynin qofkaana aan si xumaana uga hor imaaneynin si fiican laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha wixii aad samayn karto oo wanaag ah waa samaynaysaa waxaadan samayn karinna ma samayn kartid qodobkaas marka waxaa waaye mas-uuliyaddaada ka soo bax oo xaqaaga ilaahay subxaana watacaala dusha kaa saaray fuli xadna yeelo oo ha noqonin dameer oo kale oo wax walba inuu qabto ama wax walba inuu sameeyo isagoo xanuunsan isagoo caafimaad qaba isagoo duruuf haysata ha sameynin taas waxaa u leeyahay waxay tahay beri ka maalin waxaa imaan doonta in reerkan uu tarmo awlaad meesha ay imaadaan haddaa marka horeeta adiga aad iska yani aad samaysay mar walba inaa qof available aad tahay oo aan marnaba la weyn karin haddaa iska dhigto beri markii caruur ay imaata xaaladaada way isbedelaysaa hooyaa noqonaysaa nolosha way kasii duwanaanaysa marba marka ka dambeyso waxaa imaan doonta marka maadaama shalay adi aad fardeereynaysay oo aad boodboodaysay xooggii shalay aa lahayd maantana way leedahay wax ku qabso aa imaanayso yani inaan laga caawinin cunuga koowaad markii ilaahi subxaana watacaala oo idin siiyo inaa cunugaas iyo aabihiis isbarto xili inuu haysto xili aan adiga haysato xiliyada hawsha aad qabsanaysid inuu kaa haayo inaa isbarto ma ahan xiligaa hawsha qabsanaysa duudka inaa ku xiratid dhabarka inaa ku xiratid maahan ama kursi aad ku fariisid sidoo aad gaari saartid oo isu agdhigtid maahan duruuf kugu kalifeen markaasoo keliga aadan ahayn marka duruuf kugu kalifays waa samaynaysaa sooma laakiin waalidkiisaa jooga aabihiisaa jooga waa u dhiibaysaa taas waxay kaa caawin doontaa marka oo aan ku leeyahay xuduud yeelo mas-uuliyaddaadana ka soo bax in beri markaa 5 caruura ama 10 caruura aad dhasho aysan imaanin shalayba adi kaligaa isbixin jiray maantan isbixi isdabar adiga adaa isdabari kara isdabar taasaa imaan karta marka qodobkaasina aad u muhiim u yahay ha loo fiirsado si wanaagsan marka xadka i taagan tahay waxaan rabnaa bointigan kugu daro badanaa gabdhaha soomaaliyeed markay guursadaan waxay sameeyaan qodob oo nihaayada sheekadana markas tahay qofka oo dhibka ku dhacay oo ayad u noqdo waxaa qayb ka ah way guursanaysaa gabadhan ama ninka jacayl ha ku guursato ama waalidkeed ha ku daro noocan maa say ahaataba waxay sameynaysaa markay wiilka guursato oo gurigeedii timaado oo ay la wareegto mas-uuliyadda guriga waxay daminaysaa samakaarkii lagu yaqiinay oo saaxiibadeedii ehelkeedii ay ku yaqiineen waxay jaraysaa dhammaan saaxiibadii ay lahayd waxay joojinaysaa caadooyinkeedii oo dhan yacni sax waa markaa guursatid waxaa la rabaa inaad dhaqamada qaar ka tagto oo aad iskaabulada markaa xid sameynaysay oo sababtoo dhaqamadaas qaar yacni yaliiq ma kugu ahan marka aad tahay qof marwo ah laakiin bilcagsi wiilka soomaaliyeed markuu guursado hal xabo oo noloshiisa ka mid oo iska bedelayo ma jirto bal in aad ku soo korortay maahan aad iyo aad marka qodob in meesha lagu daro mudan waaye adiga ninkan aad guursanaysid waxaad u guursatay inaad nolol samaysato oo aad reer cusub samaysato oo aad dumaniinadii sakiinadii qur-aanka lagu sheegay aad hesho daaniyanna aad ilaahay haddii uu ubad ku siinayo oo aad ubad hesho laakiin uma guursanin inaad xabsi gasho oo aad dadkii jarto marka bointiyada xad hala sameeya lahay kaasoo kala qayb ka ah arrinta saddexaad aan ka hadlayo waxay tahay gabadhan ninkaa markuu soo dooranayay waxbuu uga xushay intaasoo gabdho adduunyada saaran oo soomaaliyeed oo muslimiin ah so gurigeeda markay imaato wixii lagu soo doortay ilaa way ogtaa waana loo sheegay dumarkaba waxaan kaaga xushaa loo yiri sooma inay ilaaliso wixii lagu dooqday okay diinta markaa u noqono xadiidkii waxa uu dhahay gabadha waxyaabaha lagu dooqanayo 4 shay lagu sheegay lijamaaliha walidiiniha walimaaliha walixasabiha aan kasoo qaadna gabadhan ninkan inuu ku xushay inay tahay qof asturan oo diin leh oo maxaa la yiraahdaa akhlaaq leh oo aadaab leh oo cilmi iyo maadi iyo diiniba isku darsatay okay inuu dumarka uga soo xushay dantiisa waxay ahayd gabar noocaas inuu helo adiga yaa noqotay wuu soo kuursaday guriga imaatay guriga markaa imaatay inaa sifadii sii lahaatid gabdhaha inta badan markii ay ka maqan yihiin gurigooda inta aysan soo gelin macnaha guurka dhabta inta uusan imaanin waxaa moodaa adeecitaan dheeraad ah dhab ah in ay sameeyaan oo wiilka xaggiisa ah okay markii guriga la imaado gabadhi way isbedelaysaa waji hor lehela soo baxaysaa waxyaabaha qaar waxay sameynaysaa inay ku madax adkaato inay iyada yacni sameysanayso waxaan ku leeyahay waxaa ilaashataa wixii lagugu soo doortay ilaasho haddii diin lagugu soo doortay diintaada ilaasho oo ha kaa muuqato asturnaantaada diintaada akhlaaqdaada afgaabnidaada ha kaa muuqato maryaha ha tuurana markaa marwa noqotid bilcagsi ha u dhaqmin okay hadhow waxaa imaan karta marka meeshaas ninka raggaa waa damaac waa ognah maadaama tan adi aa samaysay diintii uu kugu soo doortay uu kaa waayey inuu mid kala raadiyo uu ka helo
okay qodob meesha ku jira adaa keeni kara waxaa laga yaabaa dee taas adi aa samayn lahayn inuusan ninkan naa kale aadi lahayn laakiin adiga aa jidka u fashay qisa dhab oo dhacdana waa arkay aniga wiil macalin ahaa gabar saas oo kaleeta ahlul quraan uu rabay reerkiisa u keeneen finally gabadhi waxaa dhacday markii la isguursaday kadib inaan la arkin quraankii iyo wixii lagu soo doortay gabadhii weliba wiilkaas wuxuu isku dayay in uu dhaho baro haddana ku garab istaagaya baro kadibna iyada laga waayay finally reerka uu burburay markii hore miyay ku sartay inay ahlul quraan tahay may reerkiisa ayuu u dirsaday yiri gabar ahlul quraan ah oo quraanka xifdisan oo taqaana u baahanahay reerkii uu wakiil ka dhigtay reerka markuu xaliir gabadhana loo keenay la gal raa muxuu karaa gabar quraanka xifdisan teen walba wuxuu naag ku xushanahay isaga jirtaa okay hay marka taas waxa uga soo qaatay hadda tusaale u soo qaatay nin banaag wuxuu ku xushaa ama qurux ama maal ama maxaa la yiraahdaa diin ha ahaatee qof waxba lagu xushaa wixii lagu xusho ilaasho aywa ilaasho wixii lagu xusho adiga okay qodobka afraad ku xiga waxay tahay marwo markaa noqotid sirtan ku dadaal oo ah reer ninka ku qaba reerkiisa inaa wanaajiso xiriirkiina ha wanaagsanaada ama yuusan wanaagsanaanin khaasatan hooyadiisa haddii ay noosha wanaaga sameey yani si guud wanaag inaa sameysid diinteenaaba fareysabo qofkii ku xumeeya wanaaji qofkii ku wanaajiyana wanaaji akhiiran wanaagaas aa sameynaysid maalinu kuu shaqayn doona adiga xitaa adduunku kuu shaqayn akhir kuu shaqaynaya wanaajisa wanaagaas samee okay qodobka ku xiga wuxuu yahay gabdhaha markay reerka yeeshaan waxay sameeyaan waxay reerkooda kusoo lifaaqaan gabdhaha asxaabta ay leeyihiin okay in oo maxaa la yidhaahdaa arrimaha gudaha reerka oo kaleete naa wuxuu ii keenay wuxuu ii sameeyey wuxuu ii yeelay ama wiilkii gabadha qabay in foolka fool la isku baro ama by telephone ha la isku baro in gabdhaha asxaabta gabadha la ah waaba haddaysan asxaabteeda jarine inay gurigooda kusoo lifaaqdo waana arrin laga fiican yahay inay guriga kusoo lifaaqdo maxaa la jeedaa yacni gabadhii iyo saaxiibadeed iyo ninkeedina isbarto ee iska hor keento ee isdhexgalaan ama kor ha iska barto teleefon ahaan ha iskula hadlaan labadaba ama life life taas waxaa u leeyahay waxaa imaan karta beri ka maalin gabadhaas iyo wadaadkaagaa isbartay in meel un la iska arko ama ayada gadaashaada ha soo marto ama isaga waa nin damac ku jira ha fiiriya ayado internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah